arrimaha dibadda mudane Maxamed Biixi Yunis oo shir jaraa'id ku qabtay xafiiskiisa ayaa shaaciyay in dawladda dalka Britain ay Soomaaliland u qabanayso shir caalami oo ganacsi sidoo kalena waxa uu wasiirku xusay in dhawaan magaalada Hargeysa ay soo gaarayaan ufuud caalamiya wasiir Maxamed Biixi Yunis oo arrimahaasi faahfaahinaya ayaa yidhi shirka weyn ee ganacsiga ah ee dawladda Soomaaliland iyo Ingiriisku ay ku qabanayaan bisha soo socotay October 14keeda shirkaas oo ah shirkii ugu weynaa ee dawladda Ingiriisku ka qabato London waxa shirar hore ay ka qabteen Ingiriisku wadana fara badan oo la looreeyo wadana oo Malawi leh oo Gabon leh oo Cameroon leh iyo wadana fara badan iyo Djibouti iyo Soomaaliya imkana waxay noqotay doorkeeni marka waxaanu doonaynaa inaanu idin sheegno sidii aan ogala shaqayn lahayn wacyigelinta arrinka weyn ee maanta khuseeya ganacsatada reer Soomaaliland iyo ganacsatada caalamka ee aad iyo aad u xiisaynaysa inay ka soo qayb gasho shirka waxaanu filaynaa inay dad fara badan oo aad iyo aad ahmiyad xoog leh u saaraya khayraadka waddankani leeyahay inay ka soo qayb galaan waxaanu filaynaa inay ganacsato fara badan oo reer Soomaaliland ka qayb galaan shir baan halkan ugu qabanay ganacsatadeena iyo Chamber of Commerce-keena iyo wasiirkeena Musa Qaasin oo imka naga maqan laakiin arrinkan liil gareynaya arrinkan waa arrin aad iyo aad u weyn waxaan u aragnaa inay maanta Soomaaliland gaadhay heer caalamkii uu tixgelinayo in khayraadkeeda dadka caalamka loo sheego marka horta waxaan idinku yeelno in shirka soo socda hawshiisa nagala qayb gashaan hay'aysiintiisa iyo warkiisa iyo awareness-keeda ka qayb gashaan waayo wax waddankeena khuseeya waa waxaanu doonaynaa in dadkeena shaqo u abuurto oo waxaanu doonaynaa in maalgashayaashu yimaadaan nabadeedna iyo xasiloonideeda awgeed baana loo imanayaa iyo shaqada fiican ee dalkeena iyo dadkeena ka socota marka waxaanu doonaynaa haddaad tihiin baahda saxaafadda inaad beeshiinaasi aad iyo aad arrinkan nogala shaqeeyo Peter Koosar Maxamuud telefishinka caalamiga Star